ujeeddada waxay ahayd haddaa xasuusato June 14 madaxweyne wuxuu diray maxaa la dhahaa invitation oo maamul goboleedyada lagu casumayo in shir hordhaca la isku arko oo nooca aaladda internetka kaas oo looga anreysanayay laba arrimood oo ah waqtiga iyo goobta la kulmayo iyo wixii kale oo arrinoo jira maantana waxaa aad loo falanqeeyey sidii iyo waqtigii iyo goobtii lagu kulmi lahaa haye maxaa lagu heshiiyey marka goormaa la kulmi xaggeese lagu kulmayaa waxaa lagu heshiiyey walaal in si degdega laysu arko madaxweynuhuna la soo wadaago goobta iyo waqtiga lays arkayo marka lama cayimin oo lama sheegin goorta iyo meesha lagu kulmayo waxay u wakiisheen madaxweynuhu inuu la soo wadaago waxaa lagu heshiiyey in shirka degdeg loo qabto marka laga soo tago in la is arko oo si toosa la isu hor fadhiisto wax kaloo laga wada hadlay ma jiraa arrimo badan baa cakiran doorashadii dalka way lulataa meelna laguma sheegi karo nooca doorasho iyo wakhtiga la qabanayo arrimo badan baa la isku hayo masiiri ah waxaas lama soo hadal qaadin miya cabdisiciidow walaalo waxaa laga hadlay arrimaha socda ee siyaasadda iyo si guud baa looga hadlay sababtoo ah madaxdu badankooda ma rabin inay si detail ah uga hadlaan arrimahaas waxay rabeen in ayagoo ishor fadhiya ay ka hadlaan xaggee laga yaabaa marka cabdisiciid in la isku arko oo lagu kulmo waa ogaanaynaa mar dhow baan ogaanaynaa marka shanta madaxweyne maamul goboleed madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayay ku kalsoon yihiin oy u dhiibteen ushooda inuu go'aamiyo goobta iyo halka la isku arkayo miya haa walaal waxaan ognahay in madaxweyne goboleedyada qaarkood kalsooni badan aysan idinkala dhexaynin idinka haddaad tihiin dawladda dhexe muddona waa la kala maqnaa ma isleedahay cabdiyow kulankii maanta kalsooni intaa la eg ayaa ka dhalato mas'uuliyiintii madmadowga idinka dhexeeyey ushoodii way soo dhiibteenoo madaxweynahay ka sugayaan inuu iclaamiyo halka lagu kulmayo iyo goorta kalsooni darra ma jirinba madaxweynaha shir buu wacay kulligu si wanaagsan oo niidsamiya uga soo jawaabeen waana soo galeen khadka qaar baa safar ku jiray oo whatsapp ku soo galay inta kalena waxay ku soo galeen kan la iska arko kalsooni darro walaal ma jirin xaqiiqada marka laga hadlo labada maamul ee puntland iyo jubbaland iyo dawladda dhexe iskumaydan fiicnayn maxaa isbeddelay madahadalkii maanta kadib macnaha arrinta aad ka hadlayso oo ah I think waxaa ka hadlaysaa waqti hore 14 June wixii ka sii horeeyay Jubbaland baad ka hadlaysaa weelata Jubbaland kalimaan iyo Puntland aniga wax aan ogahay aragtida lagu kala duwan yahay weyn oo dawladda iyo maamulka Puntland isku diidan yihiin ma jiro waxyaalaha lagu kala duwanaan karo waa caadi adduunka oo dhan macnaha dadku isku aragti kama noqon karaan wax walba arrin baan isku khilaafna macnaheeda ma aha kulligan waa iswada khilaaf Jubbalandna madmadowgii jiray ma la bixiyo ma isu caafimaad qabtaan dhammaantiin waxaan rabaa inaan kuu sheego shirka maanta dhacay madaxweyne Axmed Madoobe wuxuu bixinayay contribution fiican oo si niyad sami leh wuxuu uga hadlayay arrimaha taagna oo laga wada hadlayay kamana dareemin wax oo qala ah ama diidma